Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed oo loo yaqaano Sheekh Xasan Barsane waxa uu dhashay sanadii 1853 waxa uu ku dhashay tuulada loo yaqaano Ubaadi oo 68 kiiloomitir qiyaas ahaan dhanka galbeed kaga beegan magaalada Jowhar. sanadii 1924 Sheekh Xasan waxa uu isugu yeeray culimadii deegaanka waxaana la isku raacay in laga hor yimaado xukunka Talyaaniga. waxa uu ka jawaabay warqadii Talyaaniga uu soo qoray ee ahayd inuu hubka wareejiyo asaguna isku dhiibo Talyaaniga. waxa uu u qoray Talyaaniga warqad jawaab ah. haddii aan wax yar ka soo qaato warqadda oo dheereed asalkeedana Carabi laga soo turjumay, waxa uu yiri waxaan ku bilaabayaa magaca Allah. waan helay warqadaadii waana fahmay. waxa aan ku sheegayaa in aanan qaadanaynin amarkaaga. dawladdaadu waxa ay leedahay sharciyo, annaguna waxaan leenahay sharciyo. manihin sida ummadaha kale aad gumaysataan. iskuma dhiibno isticmaalka. haddii aad dalkeena timaadaan waa inoo dagaal. adduunkani waxa uu joogaa dhammaad. ma doonayno inaan adduunkan sii joogno. waxaan doorbidaynaa inaan dhimanno annagoo difaacayno diinteena. waxaa dhacay dagaallo isxigay oo guul ay ka soo hoyeen Sheekh Xasan iyo ciidamadiisa. goobihii ugu muhiimsanaa ee dagaalka waxaa ka mid ahaa dagaalkii Buulaburte oo dhacay sanadii 1922, dagaalkii Ceeldheer oo dhacay sanadihii 1922 iyo 23, dagaalkii Hiilweyne oo dhacay sanadii 1923, dagaalkii Jilyaale oo dhacay sanadii 1924, dagaalkii Hareerile oo dhacay sanadii 1924. Sheekh Xasan Barsane waxa uu ku caanbaxay inuu ka barbar dagaalamo ciidamada asagoo oo dhiirigelin jiray. ugu dambeyntii Talyaaniga waxa ay gacanta ku dhigeen Sheekh Xasan oo dagaalamayo 4 Abriil 1924. sida ku cad buugga Orizzonte di Impero ee uu qoray Maria di Veggi waxaa lagu soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho kadib markii maxkamadda isticmaalka ku xukuntay 30 sano oo xabsi ah. laakiin waxa uu ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa 3 sano kadib 13 bishii January ee 1927. qoraalada badankood waxa ay isku raaceen in uu u geeriyooday sun lagu buufiyay qolkiisa awgeed. inkastoo la sheegay in xabsiga dhexdiisa aad loogu jirdilay laguna xiray qol god ah oo cariiri ah kaligiina oo ku xirnaa. Sheekh Xasan Barsane ayaa dawladii kacaanka waxa ay ugu magac dartay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Xasan Barsane oo ku yaalo magaalada Muqdisho.